السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرنا وتكسلوا حمر بشرتين وزارة حمر وحماية كنت صدر سراء وهيجر إيه دجال إيه مر أها من أفراد من دودات من قوي مدحوينه واحد يروح كل بنكي سؤال الله نعجى عدل جذا وتجوه بيك قاطع ودبتنا سؤال يقولوا آدي وياه عقل قابل ذلك هذا مدحوينها وحاول كفكر يا ودي محمد سياس كفكر يا كل يسقال بقول استيشن سديدي nabad waxay nooga luntay dhexdeena ma aha Soomaali wax isma qabto Soomaali waa isku diray dad shisheeya yaa isku diray Soomaali burburka Soomaaliya dibadda uga yimid gumeyna hadaan garaado ku qoydo waa mashkilad qolada xamar bishirtay wasaaradda xamar waxa leeyahay kunta صدر سراء وهيجر إيه دجال إيه مر أها من أفراد من دودات من قوي الصومالي عندهم مليونية الصومالي وين مدرسان تاعي أفريقيا مدرسان تاعي دينتي كم مدرسان تاعي نقل كم مدرسان تاعي وحقبسك إيه قرعسك إيه وحرشة كم مدرسان تاعي لكن ترى إيه مامك إيه قول مدرك كل دوين تاعي عالم كله من هو عايكها مركب ما واحد كل فكرة يسا صدر سراء وحي هالقرا وحاول صومالي بمانتا كشوف تهرية كوه أنت الحمد كشفتات هذا واحد من يا سؤال بس. والكوه من ما ذا رجال دينية سعنا إسلامياني ولحظة مده ولا لها وقوية سيد هالكان تاريخ اللغة دواجي سوكاني مدني مدى يوم حنكرا ولا التني مدى هالكان يمدي لا إسكول بيرا كسر ليس الجمهورية دي سوماليا كل سجال بقول لحد كيجرتين رونتي وحي مديهن أيجنا إن تاريخ اللغة حسه وناقص إيوه نيسميد الصومالي لماذا أي برجع إليه مادين عن ربع ونا مركيننا عن أبين وعن أتقن عن مدمدي يدول مدمدي يورالت مدمدي إن عن قادم وعن أكتو الجيل وهو إن عن نبصو علمين حسن الشيخ تلكيني والمقيمي إنه يحاول أن أقدر يدور قبل الحاد الصومالية أرض الصومالية مسكوتة وحي بدي واحد سمي الدور الشيء الله بيلا وتحضنوا كفورة لما حنا وحي وسومالنا لما حنا وحي وبدنا ويكون شران سوري سنة لا بد كلها من نعس كاس لا كل هذا الدنيا ضحى ياتي حسن شيخ وأبي تلين أو جيش تلين وثقة على أطفال ماشي أي ما أنت كلا سوري يا سنة لا لا يكون درسي وحن تلين ممكن تلاقي وحن أركشين بالأركب حن تلين مركب كوكيانو إنا أونلاين السيبرك أي كل دليل كان هو يشان حمالي أنا حمالي سمع حوين الله قد يمان سوحكوا هذا إلى يوم قداري والله مركب كين حمالكم قدرت إن شاء الله تعالى. مركب كل شيء ساسدا ساو شكتي وحيت هاي واحد جبت معها ساسدا معها واحد مركب بحي معها ما أنت عاد صاحبتي ولا بري وحتصغير ما يصير أرين كله ما أنت كل شيء وحد كل عايز أرين كله مهم ودنا marka iska hal dhinac ma noqonayso waa wajiyo badan tahay marka garan maayo sida dadka qaar ay arintan ugu qaataan personal wax personal ma jiraan oo diinta islaamkeeba asaas ku tahay la khayra fiikum watina la illa taquluha wala khayra fiina illa nasma'a yani demokrasiga asaas u tahay in kala raay doonaad hadii kala dawladdu waxay u qaadanaysaa in ayada qoman tahay marka annaga wax kale ma sameeyninba wadana madaxweyne iyo dawladda waxaan ka codsanay wixii la ballan qaaday oo doorashadii lagu ballan qaaday la codka xildhibaanada ay siiyeen ballan qaadana lagu siiyay ballanqaadka in la fuliyo koo labo saddex afar shan waa qoran yahay waa recorded baarlamaanka laga hor hadlay wax qarsan ma aha sax weeye marka waxna wax weeye waa iska hadal waxna waa practical aniga waxaan sameeyay wax practical ah oo muujinaysa waxaan sheegay inay tahay wax iska dacayada oo dad maaragtay hadal raqiis ka raadinaya ee ku sheekaystaan meelaha laakiin waxa tangible ka ah oo la taaban karo waxay tahay maxaan ku raahdaa dagaaladii ka dhacay gaalkacayo dhowrka laba beelood ku dagaalamayeen gaalkacayo inaan dad u dirnay oo la soo heshiisiiyey oo ka mid ahaa cabdiweli marka siyaasadda qoyskan inuu yiraahdo dadka Kashmir ka dagaalamaya waa laakiin dawladdeena markii uu horeeyay ku dhiiratay inuu Soomaaliyeed oo xubin dagaalamaya inay tiraahdo geeso markaas waxay rabaan ka aamusan oo la dagaalamo takoor Soomaalnimo ma aragno wuxuu leeyahay Soomaaliland bacaawinaha laga jaro adduunka soo xidho
muxuu ka soo xiri kara maxamed siyaad baraa SN ka soo xiri kara waay saarnay imkaan Soomaaliya oo lahayd guriga ka talinaya ninka la guriga kama talin kara gaar ahaan xalay saxaafadda lagu shaaciyay ee ku saabsanaa dekada Berbera waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka Soomaaliya qayb kama ahan lagalama hadlin lug kuma lahan cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas haba yaraatee sidaad ku aragteen war saxaafadeedkii ay soo saartay wasiirka dekadaha oo ag taagan oo ku baxay amarka ra'iisul wasaaraha mowqifka dowladda federaalka Soomaaliyeed waa mowqifka ku cad war saxaafadeedkaas macnaheedu waxa uu yahay heshiis walba oo la galay oo masiiri ah oo ama ku saabsan dekad ama khayraad ama bad dalka meel walba ay tahay waxa uu igman kaliya dowladda federaalka ansixintiisana waxa uu igman baarlamaanka sidaas daraadeed waxaan mar labaad hoosta ka xariiqaya inaan soo dhaweeyno shirkad walba oo dunida wadaartay musamada waxa isla soo jamaa cadaadna waxa jira dowladda sheegaysa waxa joogta koonfurta Puntland baa haysata meel ma hayso TC baa ma haysan ka soo haray bilba ka tanaya marka waa dadka ugu caqli xun ee tuulo qura ka sameyn waayay marka Soomaali kala baxday tuulo ay leeyihiin ka sameyn waayay maamul ayaa bilba ka tanaya waan maqlay kii magaalada ra'iisul wasaaraha laga dhigay isku haysta corruption kiisa adduunka ka sheekeynay wuxuu ku hadlayay ku caqli uma koro in la leeyahay ma shaqeeyna qabsanayno shaqadeena iyagu hoogoodu waxa uu horumarkeena laakiin loo jawaabo maaha maadaama ilaa ay calimaad ilaa kan maanta la doorsi wada hadlayaan oo ay maskaxdooda koreen isku si on alaana wala ka kaati Soomaaliland ma midan kana anaga midan carab midan arxam midan albur hata wakaas waa albur hila soo qabtay qashin laga soo qaadaa waxa soonaya Soomaaliland wala wala lilmani waxaan isku darsanay wax kala tagnay nabad geliyo wax artay qof dukaan kula yeesho kii waan ku khasaaro waan ka dhoofiyo waan ka tagaya wala haysa maamulada hayga tagin waan ka tagan hada taada qabsan ha noqon islaantii xaabada qaadi weyday tan ay ugu soo dab taada hagaajsan xara dhaqanka liita oo dadka Soomaalida in la aamusiyo adiga waa fashilantay adiga mucaarada tahay adiga ma hadli kartid waxay ka soo jeedaa dib u socod waaye iyo afminshaar waaye kacaanka nagala soo bilaabatay oo sulx iyo manifesto waaye dagaalka sokay ku soo xigtay oo murtad iyo argagixiso waaye markii dab ku soo dambeysay dhammaan erayada noocaas oo waa eray dadka lagu aamusinayo oo fikirkooda xorta inay cabiraan lagu diidan yahay dadkana waa siyaasiyiin siyaasadday ka shaqeeyaan siyaasadda tii wanaagsanna waa sheegayaan tii liidato qaloocanna waa sheegayaan in dalka la duminayo ma aha ogaada mucaarad waa u baahannahay ma aha kan dowladdiisa duminaya ma aha marka waa iga ballan insha Allah hadduu ilaah yiraahdo inaan wada shaqeyno maxaan ku yiraahdaa inaan dhisno institutionskeena in aan ummadeena u shaqeyno oo aynan mar dambe aynan qalbi jabin Soomaaliya annaguna intaan joognay waxna waa nalaga sheegi jiray dadkana mana xirxiri jirin mana isagoo farmaajo la joogo ama kaag bay noqotay isagii cid la socotay toona ama kaag bay uga noqotay xataa ma aanan ogeyn baxay inaga sharcigii noo yaala sidii aan nabadka soo gaay cunsuriyadaha rajin madowga cadaan ku isla taagin midna yiri wala weyn isla taagin waxa salaamin la meel ku yaala horta ma jiro moogta waxa timid deeqda waxa la yiri lacag lagu qaybinayaa maxay uga harayna horta deeqda iyo adduunka seesan mayno gobonimadiisa seesan mayno rabtaa dadka waana waxa lagu cusub waana arrin u baahan in dib la iska arko taas inteena lana siiyo waa 500 milyan baa la bixinayaa ilaa 200 milyan insha Allah taala waa lana siinaya insha Allah hay laakiin aan cid ma xukunto kale Muuse wax adduunka ka ku qoray inuu warlord yahay nin dagaalyahan yahay uu inaga xiray sidaa u imaka anaga midjidka nugu yahay nala hadli kar laayo oo isfahm leenahay adduunkan lama fahmiyo markaan inaan umadiisa Ilaahay wuxuu adduunkan inuu kaga beeray Soomaaliya waxaan nahay dad yar oo soo maray mushkilado kala duwan oo aan ku soo dhibaatoonay kadib waxaan go'aansanay
inaan yagleelno dowlad federaal ah annagu waxaan ku taagannahay go'aankaas laakiin maanta waxaa inoo muuqda khatar weyn oo wajahday Soomaaliya maxaa loo gubayaa koonfur galbeed maxaa loo burburinayaa galmudug maxaa loogu dhaaranayaa Hirshabeelle maxaa loo carqaladinayaa Jubbaland maxay dhibeen aqalka sare golaha shacabka iyo maamul goboleedyadu haddii intaas oo dadihii aysan Soomaaliya danteeda ka shaqaynayn yaa Soomaaliya ma waxay ku soo ururtay villa Soomaaliya arrimaha dastuurka waxay dowladda Puntland rajabeel ka tahay helitaanka dastuur federaal ah oo dhammaystiran taasoo hortaagan tahay dowladda dhexe ee la dagaalamaysa in Soomaaliya dastuur dhammaystiran oo federaal hesho iyagoo isku dayaya inay dhadhan tiraan nidaamka federalismka ee Soomaalidu ku heshiisay arrintaas oo ay tusaale u tahay waxa hadda Muqdisho ka taagan oo aajaha wareer iyo madaxdii federaalku ay ku rideen dalkii oo dhan ujeedkooduna yahay burburinta nidaamka federaalka ee Soomaaliya ku heshiisay walaalow intaasaan ku daba soconnay bal markaana sii oo meel fadhiiso oo indhahaaga wax ka arag marka inaan soo celinaan nidhaahno ninkaas wuu khaldanaa si xun wax u raadiy marka waa inay timaadda balansigii marka inaan helno dadkii fiicnaa inay sistamka soo galaan si ay u balans gareeyaan dadkii muddada dheer sistamka ku jiray oo sida khaldan u fakaraya waana federaalka saasa federaalku wuxuu yahay waa dowladda dhexe xoog leh adigu dowlad goboleeda tahay midda kale adeer dalka Soomaaliya dowladda dhexe ma xukunto kaliya dowladda dhexe xamar bay ku kooban tahay saan sheegnay haddii la aado hiil weynana waxa ka tirsan tahay Hirshabeelle Aljazeera waxa ka tirsan tahay South West dalka dowlad goboleedka gacanta ku haya mas'uuliyad dhulbaan laga saaran taas ayaana na faraysa in aanan cidna magan ugu noqon cidna aanan u hoos imaanin wixii dan ah oo ay dowlad goboleedyadu ay leeyihiin ayadoo dastuurka aan dhowrayno dowladda dhexna dowladdeedu way annagaa soo dhisanay soo ma halkaana ka dooranay xildhibaanada madaxweynaha annagaa dooranay inay shaqayso oo hirgasho oo ay aragohoy cadowga geeka sadanin galay lanfadaaway in umutun ka annama heeriyo gumaysi in saaranta muxtaaran cabireen markiisan aragdan lankii odaygahay oo mas'uulkaay markii la hadhii kadib ma wali nagada doonay lan oo dawladda federaalka la shaqeeya xubin kumade mas'uuliyiinta kumade mas'uuliyaddan dhiibi dawladda federaalka nagaday man wali aaminsanaha dhiigii usugaay waqtigaas inay jarinay dhaqanka liita oo dadka Soomaalida in la aamusiyo adiga waa fashilantay adiga mucaarada tahay adiga ma hadli kartid waxay ka soo jeedaa dib u socod waaye iyo afminshaar waaye kacaanka nagala soo bilaabatay oo sulx iyo manifesto waaye dagaalka sokay ku soo xigtay oo murtad iyo argagixiso waaye markii dambe ku soo dambeysay dhammaan erayada noocaas oo waa eray dadka lagu aamusinayo oo fikirkooda xorta inay cabiraan lagu diidan yahay dadkan waa siyaasiyiin siyaasadday ka shaqeeyaan siyaasadda tii wanaagsanna waa sheegayaan tii liidato qaloocanna waa sheegayaan in dalka la duminayo ma aha ogaada mucaarad oo u baahannahay ma aha kan dowladdiisa duminaya ma aha marka waa iga ballan insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo inaan wada shaqeyno maxaan ku yiraahdaa inaan dhisno institutionskeena in aan ummadeena u shaqeyno oo aynan mar dambe aynan qalbi jabin Soomaaliya annaguna intaan joognay waxna waa nalaga sheegi jiray dadkana mana xirxiri jirin mana isagoo farmaajada joogo ama kaag bay noqotay isaga iyo cidina socotay toona ama kaag bay noqotay xataa ma aanaan ogeyn u baxay inaga sharcigi noo yaala sidii nimanka soorka cunsuriyadaha rajin madowga cadaanku isla taagin midna yiri wada weyn isla taagin waxa salaamin la meel ku yaala horta ma jiro moogtay waxa timid dooq deeqda waxa la yiri lacag lagu qaybinayaa maxay nooga hareynaa horta deeqda iyo adduunka seesan mayna gobonimadiisa seesan mayna rabtaa dadka waana waxa lagu cusub waana arrin u baahan in dib la iska arko taas inteena lana siiyo waa 500 milyan baa la bixinayaa ilaa 200 milyan insha Allah taala waa lana siinaya insha Allah laakiin aan cidima xukunto kale Muuse waxa adduunka ka ku qoray inuu warlord yahay nin dagaalyahan yahay uu inaga xiray sidaa u imaka anaga mididka nugu yahay nala hadli kar laayo oo isfahm leenahay adduunka lama fahmiyo de markaan in aan ummadiisi fahmi kareen oo adduunkii fahmi kareen oo keligii ana wax ganay aniga damo ina wada karaya dabayshu geedaha uma ruxdo inay ciyaarsiiso